الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي كوبي اللواتنات كتاب كاني حكم وفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. عشاق الذل شيخ هل كان وحكو شيخ يا معلومة ويري أفر قرؤ ضدك كميد وحال صاحبة دلقة أفر تاسي ودليسيهن dulinimana kama tagta marna. midi waa alkadaab, qofka beenaalaha ah waa dulaysan yahay. midna waa namaam, qofka dadka isku dira waa dulaysan yahay. midi waa bakhiilka, qofka bakhiilka ah een waxba bixinin isaguna waa dulaysan yahay. midna waa dadka aljabbaar, dadka iyaguna iskibriya dhaalimiinta ah ummadda dulmiya oo dhiba isla weyn. afartaas dulli ayaa degay oo caashiqay oo maaragtay ayna dhinacna u dhaafaynin. sheekhu wuxuu ku sheegay macluumada kitaabkiisii madaarij saalikiin. as'ilatu lcilm. su'aalu nnaasi huwa caybun wa naqsun fi alrajuli wa dillatun tunaafi almuru'a إلا في العلم فإنه عين كماله ومروءته وعزه. wuxuu sheekhu ka hadlayaa arrin iyaduna muhim ah su-aasha binu aadamka wax la weydiisto iyadoo suuragal tahay dadka qaar inay baahi ay u geyso, laakiin dad waxaa jira su-aasha ka dhigta howl iyo shaqo ka dhigta. dad waxaa jira xitaa iyagoon baahnayn oo xoolo leh haddana su-aasha ku shaqaysta. su-aalu nnaas marka dadka inaad wax weydiisatahay wuxuu ihi ibnulqayim waa caybun wa naqsun. waa cayb iyo liidnaan oo qofkaasi qof hooseeyo weeye. waa dullinnimo anfinaysa oo ka hortegaysa muru'ada. muru'ada waxaa la yidhahdaa sharafta qofka. duu qofku gacanta uun dadka dee hoos dhigto, sidii alyaddu alculyaa khayru min alyaddi asuflaa. gacanta wax bixisa ayaa ka khayr badan midda hoose oo iyadu wax hoorsata. marka waa dullinnimo oo diidaysa sharaftana way diidaysaa. ilaa filcilmi baa laga soo reebay. cilmiga isaga in la weydiiya habboon, su-aashiisu inay badataa habboon. ilaa rasuulkuna wuxuu uhi sala allahu alay wasalam, qofka jaahilka ah waxaaba weeye waxaa la rabaa inuu sameeyaayey waa inuu culimada iyo dadka wax yaqaana wax la weydiiyo. kaasiso waa caynu kamaalihi wa muru'atihi wa cizihi. haddaad aragto qof dadka masalo weydiinaya, qofkaas waxay kuu caddaynaysaa inuu yahay qof wanaagsan, qof sharaf leh, qof ciziya dareemaya. maxaa jira ma raba inuu qarsado waxa uusan garanaynin, ma raba inuu qarsado jahli, ma raba inuu la xishoodo. diintuna waxaa la yidhaahdaa xishood male. ina allaha laa yastaxyii can alxaqi. gabdhaha intay rasuulka u yimaadaan bay oran jireen ilaahay xaqa kama xishoode fahal cala almar'ati min guslin. saasoo kale yani su-aalay ka mid ahayd. haweenaydu ma waxaa lagu leeyahay inay qabaysato haddii ay aragta biyaha oo maaragtay manida oo kale? oo qaar ay leeyihiin ma waxaasaa suuragala, oo leeyihiin way jirtaa. almuhim waa su-aasha inaan lala baqin ee la weydiiyo. cilmigana kitmaankiisu qofka la weydiiyo oo sheekhiina inuu qariyo isagana dhib bay ku tahay oo isagaa dhibaato kala kulmaaya. marka sidaas daraaddeed waa in wixii cilmiga dadka la weydiiyo. waa sharaf iyadu. meesha ay ka tahay adduunyada in laiswarsadaayo ceeb ay ka noqon ama hooseyn ka tahay, tani waa sharaf iyo cizi iyo sharaf wey. macluumadaa sheekhu ku sheegay kitaabkiisii miftaaxu daari sacaada. alitibaacu alxaqiiqiy. maxaa la odhan karaa qofka sida dhabta ah u raacay diinta, rasuulka u raacay, sunnadiisa raacay waa kee? laa yakuunu alrajulu min atbaacihi sala allahu calayhi waaalih wasalam xaqan xataa yadcuwa ilaa maa dacaa ilayh.
qofka lama odhan karo waa qof raacay nebiyullaahi moxamed sala allahu alay wasalam waddadiisa si dhaba u raacay ilaa uu wixii uu rasuulku dadka ugu yeedhayay isaguna ummadda ugu yeedho. gaar ahaan dadka ducaata, alitibaacu alxaqu biducaati limanhajin mukamili sifaat. yani waxaa la rabaa inuu qofku wixii nebiyullaahi moxamed ugu yeedhay diintii saafiga ahayd ee dhabta ahayd loogu yeedho, bidco aan loogu yeedhin, wax aan jirin aan dadka loogu yeedhin. marka kaasaa waxaa la odhan karaa waxayna u baahan tahay. mar horaan kelimad qofna waa i weydiiyey, ikhlaas. diinta waxaa la yidhaahdaa acmaasheenna aan samaynayno laba shaybaa aada u muhiimsan. waxaa la yidhahda ikhlaasku marka waxaa weeye inaad shaygan ilaahay darti ula jeedo. ka labaadna waa alitibaac, waa midka hadda aan sheegayna, iyaduna waa raacid nebiyullaahi moxamed looga dayanayo. man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun marduud. waa kii rasuulku sal alla alay wasalam xadiidkii shanaad bu haban kutubta arbiciinkii ku yiilay xadiida caaisha. marka qofkii wax aan diinta kamid ahayn kusoo dara ama ummadda ugu yeedha waa lagu celinayaa. maalinta xawdka ama darka rasuulka qiyaamada la taagan yahay, rasuulka wuxuu sheegay inay dad ku soo aroorayaan oy xawdkii rasuulka isleeyihin ka caba uu ka celinayo suxqan laga joojinayo.